Assalaamu calaykum. Kusoo dhawaada cashirkeena xigo. Cashirkii noogu dambeeyey ee labaad waxaa nagala raba inaan ku barano am iyo is iyo my iyo your. Marka waxaan intii aanan baran ka hor waxaan ka soo hadli doonaa personal pronouns-ka, possessive adjective-ka, 50p-ga si markaasi yani qoto dheer oo sida buug ugu qoray ka qoto dheer ayaan hadda ugu faalo doonaa aan u qori doonaa. Okay. Marka noogu horeyso waxaan ka bilaabeynaa waxa loo yaqaano personal pronouns-ka. Waxaan ka bilaabeynaa waxa loo yaqaano personal pronouns-kan ka bilaabeynaa. Personal pronouns maxay yihiin? Personal waa shakhsi waaye, pronouns waa magac u yeelo. Magac u yeelada shakhsiga ah waaye. Magac u yeelada shakhsiga tusaale ahaan kaleeto cali ayaa noo qornay. Caligan maadaama magac nin yahay anaga maxaa noo bedeli karo? Waxaa inoo qoran Aisha ama Asha. Aisha noo qoran maxaa iidan inoo bedeli karo magac u yeel markay noqoto. Okay, waxaasoo kale ku baranaynaa. Tusaale kale cali ayaa noo qoran waxaa noo bedeli karo he. Aisha noo qoran waxaa inoo bedeli karta she. يعني booskii magaca wixii qaadanayo ayaa waxaa loo yaqaanaa personal pronouns. Magac u yeelada shakhsiga ah. Personal waa shakhsi, pronounsna waa magac u yeelo. Magac u yeelada shakhsiga ah. Okay, magac u yeelada shakhsiga marka maxaa ka mid ah? Waa I. I marka maxay noqonay? Inaad baratiin personal pronoun waa muhiim. I waa aniga. Aniga markaa dhahayo Ingiriis I. Okay, markaa qofka hor jooga adiga aad dhehaysid you. Adiga adiga qofka hor joogo you adiga. Okay, we waa dad badan oo adiga ah ku jirto. Xitaa adigii qof kale way noqon kartaa. Mesela adiga aniga iyo adiga idaawana isla duul maxaa leeyahay marka annaga. Annaga marka we adaa ku dhex jirto. Hal qof kale oo kaa dheeri ah ama laba qof kale ama saddex qof kale intay rabaan ha ahaadaan. Dad oo jamca tihiin maxaa dhahay marka annaga. Adigaa ku jiro marka. We waxaad ogaataa adigaa ku jirto. Okay, ayada markaa dhehayno qof dumar ah maxaa dhahaynaa she. Ayada waa qof dumar ah waay she. Ayada qof ragga markaa ka hadlayno asaga aan dhehayno maxaa dhahaynaa he. Asaga asaga ama asiga hadda dhahdid ayada ama asiga soomaan asiga hadba af Soomaaliga waxa uu taqaan laakiin qof nin ah markaad booska magaciisa aad yani pronoun aad ugu yeerayso personal pronoun aad ugu yeerayso maxaa dhahaynaa he. Asaga it maxaa waa marka it waxaa waaye ayada ama asiga. Okay, oo loo isticmaalo maxaa loo isticmaalaa xayawaanaadka ashyaada iyo waxyaabaha aan nooleen. hadba af Soomaaliga iska quraxsada af Soomaaliga intaan tabar iga ah. Okay, it marka waa ayada ama asaga oo waxa loo isticmaala xayawaanaadka iyo ashyaada iyo markaa tilmaamayso lab iyo dhidig ma kala lahan. Yani inaag kalama lahan it la magacaabay. laakiin waxaa shardi inaad ka hadlayso xayawaan amba ashyaa aad tilmaamayso shay aad tilmaamayso amba waxaa noole aan ka hadlayso marka waxaan dhahaynaa it ayaan isticmaalaynaa. Okay, ayaga maxaa waaye marka dad markaan ka hadlayno oo badan aan wax ka sheegayn maxaan dhahaynaa they. Ayaga they maxaan dhahaynaa they ayaga. Okay, intaa markaa isla fahanna marka waa muhiimaan ku dhaha inaa xafdiso personal pronoun-yada aan noo waaweynayo. Okay, personal pronoun-ada aan kuwa kale af Soomaaliga ka duwo. Okay, marka luqadda ku cusub tahay personal pronoun-ka inaad taqaano waa kuu muhiim. haddaadan personal pronoun-kaadan aqoonin oo waxaad ka hadlaysa nin mase naag waxay yihiin aadan aqoonin dhibaato waaye, problem ay kugu noqonaysaa. maxaad u baahan tahay marka inaad taqaanid waa waxaa ka hadlaysa nin miya mase naag inaad taqaanid waa.
iyo pronoun ku habboon aa isticmaalad inaad taqaanid waaye. Okay, haddaad marka dhihi karin aniga oo aadan dhihi karin adiga oo aadan dhihi karin annaga, ayada, asaga, oo xayawaan aadan tilmaami karin ama ashyaa aadan tilmaami karin, it aadan isticmaali karin, oo ayaga aadan they isticmaali karin, dhibaato waaye. Okay, toddobadan xab waaye. Marmar meelaha qaarna sideed ku aragtaa laga yaabaa oo you marka la soo celiyo oo ah idinka. Yani hal qof markuu ku hortaagan yahay waxaa leedahay you waa adiga. dad badan oo ku hortaagan markaa la hadlaysone idinka markaa rabtid inaad ahdidne waa isla you oo keliya. marka intaa inaad fahanteen aan rajeynaa. muuqaalada inay dheerdheeraadaan ma rabo. marka muuqaalkiisa xiga ayaa inta kasii wadaya insha allah.